بسم الله الرحمن الرحيم داوده ما ogtahay masala socota tirada guud ciidankii elitariya lagu soo tababaray inay ahayd 5167 askari ma soo ogtahay intay tababarka ku jireen inay dhinteen 45 askari masala socota dambiilayaasha al-shabaab ka noqday ee ciidanka laga dhax qabtay intay tababarka ku jireen ee basaasiinta ahaa inay dhamaayeen cadadkoodu 118 askari masala socota inta dambiyada qowmaluudka wax la yiraahdo ama khaniisnimada ee laga dhax qabtay ciidanka la tababarayay inay dhan yihiin 47 askari oo xabsiga elitariya hadda ku jira ma ogtahay inta la soo qaaday ee Soomaaliya loo soo qaaday inay dhan yihiin 2967 askari masala socota inta inay la socdeen 120 askari oo elitariyana oo saraakiil askari isku jirta masala socota ciidanka haray ee elitariya joogay tababaran inay tiradoodu dhan tahay 2155 askari ma soo ogtahay ciidankii la keenay ee dhamaa 2967 askari inay saaka fakatay oo fakatahay ciidan gaaraya 2067 askari sirtaas oo dhameystiran waxa halkan nooga sii deyn doona noona warrami doona sarkaal kamid ah saraakiishii elitariya lagu soo tababaray sarkaal kamid ah kuwii tababarka dhameystay ee Soomaaliya la keenay ee 2967 askari ee timid kamid aha asagoo wax badan noo faahfaahin doona waxaan ka codsanayaa sarkaalkaas codkiisa mixer baan mariyay si aan loo garan ama uu amnigiisa uusan dhibaato warag wuxuu ka sheekeynayaa sarkaalkaasi dhibaatooyinka ay mareen burburka ciidanka lagu sameeyay sida aan dawladdu nadiyaala ku rooyay u aragtay ciidankan sida loo qabyaaleeyay sida looga xushay intii madaxweynaha haatan jooga la ehel ah ama la qaraabo ah inta kalena cagta loo wada saaray sida kuwii yimid mushaarka loo kala siiyay oo intii reer hebelana mushaarka la siiyay intii kalena ay waxa cunto weyday sida darteedna ay u carareen aan idin kala baxo idinkayo sarkaalkaas aan skin baro daawasho wanaagsan عليكم كابتن أيوب صاحب واكو سلامي sidaad isugu hawshay barnaamijkan xaqadiisa iyo ka gaarkiisa niyo waxaan kamid ahaa dhalinyartii tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ee baxay sanadkii 2019 dibna ugu soo laabtay dalka dhamaadkii sanadkii 2020 bishii December waliba 10keedii dambe intii aan meesha jirnay niyo xaalado badan iyo dhibaato badan baan soo wajahay حسيت توبر كان قادم توبر حقيقيا دمايستيران نظيف dhinac walbana la ka dhisay waxaan aaminsanahay askari kale oo Soomaaliyeed hadir shootin ama toogasho nagu gaara walla inuusan jirin sidoo kale dulqaadka daajada iyo duruufaha ciidanimo ciidankan aad baa looga dhisay isagoo duruufo adag ku soo tababar qaatay si ay noloshiisu u barto nolosha sida u adag حسيت ilaahay maad waxa tababarka adag aad baa rag uga baxay laakiin duruufa badan oo jiray awgood oo dhibaatooyin waliba laga shaqeeyay baa rag waxna ay gaareen intaan tababarka ku jirnay waxa naga dhimatay almost 45 qof 8 kamida waxay u dhinteen dagaalo dhexmaray ciidanka Soomaalida ahaa marka tababarka qaadanayay iyo nimanka Eritreanka ahaa markii 2019 bishii dagaal baa dhacay oo waxa ku dhintay hal wiil Allah naxariistay dagaalkaas Soomaaliya oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan ba ku dhintay sidoo kale ciidan kale oo dambe gadaalka yimi oo 2020 bishii labaad yimi bishii 2014keedii waxa ay galeen dagaal waxa kaga dhintay iyaga Eritreankaas ku dhacay si aad xun baa loo gumaaday waxa ka dhibantay 7 wiil baa ka dhintay ilaa naxariisto sidoo kale kontameeyo ayaa ka dhaawacantay inta marka laga yimaado intii dambe muddo sanad ah baa rag aad u badan naga baxaniyo duruufo badan oo aan meesha ku nagu helay awgeed waxaan aaminsanahay duruufahaas inaysan Eritrea noo geysan xaqiiqiyan Abdurisaaq iyo hawsha oo dheeraatay awgeed ay keeneen baan aaminsanahay in badan rag baa dhiig la'aan nooga dhintay xanuunna yaro maynara oo la xalin karo baa rag nooga bax Allah naxariistay sidoo kale haddii safaradii wixii soo bilowdeen ciidanka aad baa loo kala guray iyadoo jacayl iyo waxa lagu kala baalkeenay oo barnaamijka Eritrea haba shaqo ku lahayn dawladda Soomaaliya aysan waxba ka ogeyn laakiin ninkii u dhaxayay ciidanka iyo dawladda Soomaaliya ayaa dhibaatooyinka sameeyay
waxaa la dhacday in uu sameeyey mas-uuliyiin ama taliyayaal rabo ku sheego oo isagu jeebkiisa ka wato jacaylkiisa. haddii uu maanta ku janto wuxuu awoodaa inuu kaa dhigo taliyo guud, taliyo urur, taliyo horin ilaa taliyo gaas haddii uu ku janto. hadduu adoo taliyo guud taha maanta uu kaa dhex arko amaad isqabataanna waxaad jirtaa inuusan waxba ku bahalkeenin. sidoo kale waxaa jirtay aqoon kasta lahaw, dadaal kasta samay, in uu jiray family attack ama personal attack wax la dhaho oo ku saabsanaa deegaanka hartiga, iyagoo in badan laga ilaalinayay mas-uuliyiinta meesha. sidoo kale cabsi waxyaalaha dadka ku xulanayay waxaa ka mid ahayd qof ku aqoon leh ka cararaya, iyo qof xataa waayo aragnimo khibrad ciidan lagu ka cararayay, xataa qof wax uun ku siyaadin kara fikirkiisa ka hor imaan kara berri uu ka cararayay. dadkan deegaanka ka yimaadeen niman in badan wax soo bartay oo meesha ragga joogay jaamiciyiin u badan bay ahaayeen xaqiiqiyan. ragga halkaa ka yimi intaa marka laga yimaado mas-uuliyiinta iyo waxa uu sameeyey waa la soo tegay. marka safaradii marka ay bilowdeen ayaa ciidankii la kala guray, waxaa loo kala saaray 1200 waxaa loo qaaday badda oo la takhasus dhalada qaadanaysa. sidoo kale 200 waxaa loo qaaday xero cirka lagu barto oo takhasus cirka baranaysaan baa leeyahay. sidoo kale ciidan 400 waxaa la yiri joogta culus baatiin qoryaha art5 iyo BM iyo takhasus dhalada idin sii galeysaan inta hubkeen la keenay Eritrea sii joogaysaan. meesha ay sabtu ka qorantay marka waa meeshan hal goob ayaa waxa la isugu geeyay dad eedeysanayaal, dad dambiilayaal, dad khaladaad waaweyn galay iyo dadkii tababarku intuu socday xanuunku soo wajahay baa la isugu geeyay. waxa meel la isugu geeyay dadku eedeysan 4 sano oo ciidanka markii hore lama kala silsilin 5 qofna way ahaayeen moodo wanaagsanaan karaan. 5 ilaahay naga najiyay qowmuludnimo ama makhluudnimo ku eedeysan, qayb kamid ah ku eedeysan 47 qof meelaha ah. sidoo kale waxaa shaqaynaa ku eedeysnaan 118 askari oo kulligood most of them wada qiraala, daily report, weekly report, monthly report gudbin jiray oo isku day jirnay telefoon helaan warbixinada dhan u gudbin jiray khawaarijta. inta marka laga yimaado waxa kale oo halka lagaga soo tagay dhalinyaro intay isku dayeen nolosha intii ku adkaatay inay soo tagaan oo la soo qabtay qaybtood sanad iyo xabs dhulka hoostiisa ay ku xirnaayeen baa meesha lagaga soo tagay ilaa 61 qof ah. sidoo kale waxaa laga soo tagay dad xanuunsanaa tababarku intuu socday ama xanuunna nafsiyan ay soo wajaheen oo waashay, ama xanuun kale oo jug iyo wax soo gaaray ay soo wajaheen, ama xataa Eritreanku dad ay laayeen ayaa lagaga soo tagay meeshaas. oo 3 group 4 groupna waa laga soo tagay barnaamijyada ku kala eedeysan. tirada la soo qaaday waxaa la soo qaaday oo Soomaaliya la keenay 2967 askari oo Soomaali ah. sidoo kale waxaa la keenay 120 askari Israa'iil isugu jirta oo Eritrean ah. waasto nin la dhaho Barqash Xayle ama wada Xayle loo garan og yahay. sanaaminsanayna waa hadda mas'uulka xerada General Gordon ninka xerada haysta way xaqiiqiyan oo amarkiisu ka shaqeeyo oo dhibaatada meesha ka sameeyay. inta marka laga yimaado hubkana la siinayo Eritrea ay hubka bixinaysay qaybtii ugu horeysay ee timaada ee nimankan jeedkeeda loo yaqaan loogu talagalay xerada inay waardeeyaan iyo ofiisyada inay ka shaqeeyaan iyaga diyaaradda maalintii ugu horeysay aeroboortka lagu siiyay. inta kale ee timina kullu ciidanka hubkooda waa loo waday, diyaarad walba timaado hubkeeda way wadatay oo xerada gudaheeda lagu siiyay. waxaa la bixiyay intaan hadda wali arkay AK iyo BKM iyo sniper ama sharpshooter iyo 7 ama RPG. sidoo kale dhashiikayaalna waa la keenay laakiin tiro badnayn lama qaybin iyagoo mas'uul dadka kala qornaa lama siin looma dhiibin. sidoo kale shilkana way laba lagu lahaa laakiin ma aan aragano dhibaatada markii Eritrea markii Soomaaliya la yimi dhibaato weyn ayaa meesha lagala kulmay. ninka Cabdirasaaq xaqiiqan ciidanku wuxuu haystaa inay yihiin robot laga keenay dalka China ama Japan. xaqiiqan Eritrea noo roonay saddexdeed waqti si nadiif ah heli jirnay. Soomaaliya markaan nimi jiif xumo iyo cunto xumo iyo maamul xumo iyo dhibaatooyin oo dhan soo wajahay. horta waa mid
inta xumada markii la dhaho Soomaaliya annaga dhex joogna xaqiiqiyan ba afar maalmo waxaan soo martay wallahi kabtaniyo saddexda waqti aan hal waqti heli jirnay it means 24 hour ban hal waqti u heli jirnay halka waqti rootiye shaah ahaa maalin kale iyadoo xaalad sidaan ugu socoto waxaa noo soo gurmadin dhalinyaro naga tirsanaan jiray taliya ciidamada badda laga dhigay khayr Allah siiyo baarak la dhaho ayaa noo soo gurmay isagu careless ka fikiri maayo arrintaas sidoo kale Eritreaanki uu keensaday dalka wana la qabanay iska ooyin haddii aad wax dalbato ama cuntaad magaalada ka dalbato maalaab kala dalbato albaabkii laga soo gelin maayo oo lama ogolayn dhibaato jiif xumo iyadoo meeshii ku dhawaad 3,000 askari la keenay ba meesha waxa la keenay 1,200 oo joodari oo 220kii oo 200 waxa qaatay taliyaal isku sheegiyo waxa qaatay Eritrean 1,000 joodari ninkii dhaqdhaqaaqi kara ama taliyaasha ciyaalkan saaxiibka la baa qaadanayay intaas dhan marka laga yimaado maamul xumada meesha ka jirtay ciyaalku taliyaasha dhigay aqoon maadi iyo diin iyo khibrad midna lagu soo xulin Eritrea markii aan joognay haddii aad tali horinka ka amar diido awood waxa uu lahaa inuu 5 qof intuu kugu dalbado lagu xirxiro usoo jeceliya ku garaaco xilliga dib baan ku jiro dal qurbaa baan joogay tiiba halkan la keenay waxyaalaha laga cararay askari iyo tali horin bas qabanaya ama askari iyo tali koox bas qabanaya shambulay iyo xirxira ulbula dulimaanaya suunku ula baxayo sidii wiil u dhalay buu suunku ula baxayo askartii ciladaas weyn ba soo wajahday taliyaasha marka lagu dhaho taliyaashi oo dhan wuxuu ka ilaaliyo wax aqoon leh iyo wax ka soo jeeda hartiisan barnaamijkii loo oran jiray waxaan filayaa in ka badan 40 taliye ama iska jira min taliyoon ilaa taliye gaasa hal inuu taliye urura baa kaga jira nimanka harti inta marka laga yimaado oo duruufo aad u adag oo la soo marayniyo Soomaalidu waxay ku mamaadaa rag cadaalad way sida cawshi kala carar meeshii aad baa loogu kala cararay shir buu noo qabtay madaxweyne baa noo yimi wuxuu dagaal baa galaysaan warada madaxweyne maxaan dagaal ku galnaa 4 sano dadka ay ka maqana inaan soo eegno waa muhiim iyadoo ay taasi jirto Cabdirasaaq bashir noo qabtay wasaaradda caafimaadka dawaan ka soo waayay sidoo kale wax lacag waa soo waayay madaxdu lacagdii ma ogola dagaal hal isu diyaariyo warada taliyo si dagaal aqal ku noqonaysa anaga mid kale taliyaha wax walba waxa noo Cabdirasaaq raashinka tunoo go isaga noo haddii wax walba naga go'an haddii shir la qabanay isaga noo xaqiiqan xorada markii guda joogo odawaa Yusuf Raage oo ciidanka Soomaaliya iska ka sareeya authority-gan dheeraadka oo meesha uu ka jiro ilaa hadda ma aan fahmin wuxuu annaga nagu amray ciidanka ay qayb kamid ah baabkii wardiyeynaysi nafle aan anigu ogeyn ma soo gali karo albaabka xerada waxa laga cawliyay janano garbaas as awood lagu celiyo lama garanayo iyagoo meesha shirabay maalla haddii maanta Cabdirasaaq lambarkiis uu dansan yahay maanta cuntada xerada waa cashadu waa naseegaysa caaw xaqiiqiyan baan ku sheegaya ciladaas marka taas oo dhan ay jirto maalin kale Cabdirasaaq shir qabtay waxa uu yiri 5 maalin 5 days baan ururkii fasaxaya rag badan oo ka soo jeed way magaalada Muqdisho lama wada deganaa ama lagama soo wada jeedo gobolka Banaadir isagu waxa uu xeerinayaa bas waxay dad yar oo gobolka Banaadir kaga jira ciidanka mas'uuliyiintan u badan waliba beesha madaxweynaha waliba u badan bixeer buu xeerinaya inta marka laga yimaado waxa la yiri dad baa gobol la ka yimi gobolka ugu sokeeyo shabeellada hoose shabeellada ilaa iyo gobolka ugu shisheeya awdal rag baa ka yimi 4 sano waalidiintood la kulmay qaybto 3 sano la kulmin sidee xal ku noqonaysaa wax iyaga I don't care about it buu yirniyo wax iyaga galay ma jiraan waayahay baa la yiri nin walba qorigiisu isdarsaday abaab ka bax sidoo kale lacag la soo dirdirayay baa waxa dhacday oo dadka qayb soo dhacay adoo almost 1500 qof soo dhaceen lacagtii lagu kala badnaaday 1500 u soo dhacday baa ku kala badnaaday dadka qaar 400 loo soo diray dadka qaarna 200 dadka qaar 350 loo soo diray iyadoo mas'uuliyiin lagu kala sheegay lagu kala qiimeeyay dagaal baa xerar ka bilowday oo aad nimanka miyay naga sharaf badan yihiin waana la soo tababar qaateen horjoogayaal bay noo ahaayeen waana sababta uu dagaalku ku dhacay maalintii dambe ee gaashaandhigu ay soo dhigayeen dabrid baa waxaas dabrid ma uusan xaqiiqin dagaalka kacay buu ahaa tali kooxyada ciidanka iyo tali horimada ciidanka
sababta u kacayna waxay ahayd why not maxay naga qaateen lacagtan faraha badan annagoo aan weli qaybtay wax qaadan oo dadka qayb wax loo din anu hadda ku jiro weli lacag maan hayo wallahi xaqiiqiyan baa qaybtood dad wax loo diray $447 igama tababar fiicnayn igama akhlaaq fiicnayn igama barnaamij fiicnayn laakiin waa haybta madaxweynaha xaqiiqan kuu sheegaya halkaas iiga dhowya barnaamijkaas iyo duruuftaadu adag buu ragu ka cararay hadda almost 2,000 askari xeradu way iskaga tagtay kuwa dhulka ku safray kuwa diyaarada ku safray si caadiyaba annaga taliyaasha hoose nin walba ay awood noogu sheegtay xaqiiqiyan dadka deegaamada gobolada ka yimid caadi waa awood noogu sheegtay oo nin walba ayar meesha la joogay waa xamar anaa kuu taliya marka niyo dhibaatooyin badan oo xeeran baa jiray dhibaatooyinkaas ana rag ka kala cararay de waa salaaman yihiin ciidankii dalka Soomaaliya sida quruxda badan loo soo tababaray naf iyo maal la geliyay barnaamij walba la geliyay waxa uu noqday ciidan shakhsiyadeed xaqiiqiyan ciidan shakhsiyadeed buu noqday waana barnaamij aad u nasiib xun ciidankan xaaladda uu ku socdo xaalad wanaagsan maaha tani waa xogta ciidankii 3 sano iyo 4 sano lagu soo tacbayay oo markii tababarkii wax kasta u dhamaadeen xukuumadda haatan jirta ee uu madaxda ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud ay u aragtay inuu yahay ciyaal uu dhalay farmaajo sidaa darteedna ay go'aansadeen inay burburiyaan una qabateeyaan baabi'iyaan ay kala yaacaan oo xaafadoodii kala aadaan ay u arkeen inaysan ciidankaani anfacayn ayaga ay xogtaas oo dhammaystiran waa tani fadlan haddii ku soo gaadho sii sheer gare oo isgaarsi